gala dagaalka ku kaca cadow gudaha jira waxaas way naga xaaran way naga reebay waxaana lagu wareejiyay ciidan macawisleeya ciidanka leedahay waa macawisley miyaa kuwani masagan dhex taagani waa masaganta ay huwantu ay maalin walba darbiyadeeda ay oran jirtay waanu joognaa masagan miyay iman karaan butubata oo kuwa sida tooska iskuulkii masagan uga dhex qadaynay halkan waa dugsiga caaqil Ismaaciil Cali Suudi waa dugsiga masagan oo dugsiga hoose dhexe masagan waa halkay huwantu lahayd annaga joogno gacantan ku haynaa intay fidiyo way bir hore duwanay soo galiyeen ay baan ka sheegaan ciidanka qaranka iyo waxqabadkooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ciro oo hambalyo u diray isla Mareykanka misana soo dhaweeyay inay xafiis ka furtaan isla Hargeysa waxaan isagana xusaya xiriirkeena dawladda Mareykan oo ku jira dalalka sida gaarka ah Soomaaliland u danaynaya waxaan bogaadinayaa xildhibaanada Koongareeska iyo Senadka iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanka ee ku baaqay in Mareykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto Soomaaliland waxaanu mari doonaa dariiq kasta aanu ku sii xoojinayno xiriirkaas dhanka kale madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa ku baaqay inuu xukuumaddiisu ay sii adkeyn doonto xiriirkii walaaltinimo ee ka dhaxeeyay dawladda Djibouti ee aynu walaalaha nahay waa sidoo hadalka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro u dhigay waxaan sii adkeyn doonaa xiriirkeena soo jireenka ahaa ee walaalaheena Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kalena xiriirkii amniga iyo dhaqaalaha iyo wax kasta oo kala dhaxeeyay ee Itoobiya waajib yahay inaan ay sii xoojiso xukuumadda Soomaaliland ee maanta culatay waa sidoo isla Cabdiraxmaan Ciro uu dhigay hadalkee waxaan xusayaa dawladda Itoobiya oo ay saaxiib soo jireen nahay iyo jaal ayna uga maarmayn horumarka dhaqaalaha adkeynta amniga xasiloonideena bulsho iyo xiriirkeena Afrika waajib ay nagu tahay inaanu xiriirkaas sii wanaajino faa'iidada uu leeyahay labadeena qaranna aan halka ugu sarreysa gaarsiino dhanka kale Abiy Ahmed oo kaga baxay wixii fil Soomaaliya maalin dhow laga soo kirkiriyay ee ahaa in ay uu Abiy Ahmed uu ogolaaday isla Xasan Sheekh in uusan dhexgelin isaga iyo maamul goboleedada balse taa beddelkeeda Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa ayaa maanta sameysay in diyaarad ay ka soo dirto magaaladaasi Addis Ababa misana ay ka dhigto xagga iyo Kismaayo oo ay ka soo qaado wasiiro Jubbaland sidoo kalena odayaal dhaqameed halkaas ka soo qaaday oo geysay doolo sidoo kalena isla wasiiradaasi ka dajisay magaalada Addis Ababa wasiiradaasina ay u sii gudbi doonaan dhankaas iyo Kenya sidoo kale Kenya ayaa fil Soomaaliya dhawaan laga soo sheegay in ay saaxiibadooda ugu dhow ay tahay Kenya misana aysan carqaladayn doonin oo aysan la shiri doonin maamul goboleedyada oo ay u fikir jabin doonto maamul goboleedyada ku gibray isla Xasan Xabaalo Fadhe waa sida iyagu ay filla wardhiglay ay hadalka u dhigtay ka kale Itoobiya oo iyaduna walaac ka muujisay xiriirkii isafgaradka ahaa heshiiskii isafgaradka ee Soomaaliland iyo dhexmaray Itoobiya ka kale wasiirkii hore ee isagu la oran jiray Xamarji anigu oran baay maanta Xamarji wasiir qamadi xurteeye ayaa leeyahay wasiir Xamarji oo maanta isagu wasiir ku xigeen ah ayaa isaguna ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaf u geystay gala dagaalka ku kaca cadow gudaha jira waxaas way naga xaaran way naga reebay waxaana lagu wareejiyay ciidan macawisleeya waxaana lagu wareejiyay dal gobolladii ugu badnaa ugu mudnaa ay maqan yihiin waxaana lagu wareejiyay colaad waxaana lagu wareejiyay ummad la kala fadhiisiyay xuquuqdad la kala geliyay wasiir qamadi xurteeyo ciidanka macawisleyda ah ee lagu dhiibay ee la idinku wareejiyay ma kuwana macawisleeya ma kuwan baa macawisleeya uu hor taagan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ma kuwana macawisleeya soo kuwa xidigahoodii wata sharaftaas iyo haybadaasi ay ka muuqdaan adeero qamadigiiba wax ku dhimay aad xurtaysay ee aad xaday makiiba wax ku dhimay oo cuqubadii qamadiga ayaa kugu dhacay oo noocadani ku galay ilaahay muxuu ka yeesay hadalkaas kaliya kuma weykaale wuxuu hadalkiisa sii raacsaday goboladii ugu muhiimsan ee Soomaaliland baa maqan gobolada ugu muhiimsan ee Soomaaliland ka maqani waa kuwee gobollo ma waxaad u taqaanaa afarta tuulo
ee sool bariya awal baaba laydin qaatood lahaydeen sool bari weydo heesa noocaasa markaad mucaaridka ahaydeen aad ku heesayseereen maantood muxaafidtihidiinna caqliyadda kaa keentay waa maxay gobollo ugu muhiimsanaabaa somaliland maqan waxaa muhiim noqday 4 tuulo oo sool barigeeda ciidankaad leedahay waa macawiisley miyaa kuwani masagan dhex taagani waa masaganta ay huwantu ay maalin walba darbiyadeeda ay odhan jirta waanu joognaa masagan miyay iman karaan butuu bataa oo kuwa sida tooska iskuulkii masagan uga dhex qadaynaya halkani waa dugsigii caaqil Ismaaciil Cali Suudi waa dugsigii masagan oo dugsiga hoose dhexe masagan waa halkii ay huwantu lahayd annaga joogno gacantan ku haynaa intay fidiyo ay bar hore duwan ay soo geliyeen ay been ka sheegaan ciidanka qaranka iyo waxqabadkooda madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxaa ka baqanaya rakaab xumudani inay disho sharaftiisa iyo subcadiisa iyo wuxuu isagu gaar ahaan doonayay aragti ahaan ta wanaagsan uu doonayo sababtoo shalay toole ciidanka qaranka waa kii ku daray miisaaniyadda ciidanka qaranka mushaarkooda ballan qaaday inuu kordhin doono intani aanu madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro 100% waa ku amaanaya si sharaf leh oo gobonimo leh walibana inuu degdeg oo arrinkaasi u hirgeliyo ayaa 100% aan rajeynaya sababtoo kuwaynu kulladna ee nabadaynu ku seexano aynu ku soo toosnaa ilaahay ka sako waa ciidanka jamhuuriyadda Somaliland iyagoona kala qaadqaadayn hadday yihiin kuwa boolisa hadday yihiin kuwa traafikoyna kala haga iyo hadday yihiin kuwa badeed iyo hadday yihiin kuwa military oo gaarka nabadaynu ku nool nahay ilaahay ka sako iyaga la'aantood aysan hirgasheen waana kuwa ugu mudan in la maamuuso la sharfo la weyneeyo oo la ixtiraamo oo looga abaal celiyo oo loogu mahad celiyo in ay shaqo wanaagsan tii ugu mudnayd oo binaadan qabto inay ummadooda ay u hayaan waana kuwa mudan in dhan walba laga dhamaystiro hadday tahay caafimaad hadday tahay tirakoob hadday tahay waxbarasho hadday tahay daryeel dhan walba ka kooban oo awlaadooda iyo xaasaskooda dhammaantoodba kafaynaya iyo mushaharba in la iskugu daro waa kuwa mudan waana ku dhiirinayaa maanta madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro 100% waana ku amaanaya inuu sidaasi gobonimada leh uu hadlay iyo ballanqaadkaasi uu sameeyay inuu insha Allah uu ka dhabeeyo miisaaniyadda qaranka ee maanta la gudbiyay inay ka soo dhex muuqdaan isla ciidankaasi qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyagoo dhamaantoodba aanay kala qaadaynin sida ay u kala mudan yihiinna mushaharka lagu kordhiyo number 1 ay noqdaan ciidankaasi militariga jamhuuriyadda Somaliland waayahay aanu soo laabto qodobka Ethiopia ay ka hadashay isla ay ku tilmaantay in Somaliland ay u janjeersantay xagga iyo Soomaaliya misana ay danteeda Ethiopia aysan uga tanaasuli doonin kuwa iyagu dantooda ka tanaasulay Ethiopia waxay sheegtay inay u aragkayso Somaliland maanta inay iyadu madaxbanaanideedii ay ka tanaasusay misana ay xagga iyo Soomaaliya ay ka raadinayso xal iyo hadaladii madhalayska ahaa inay dib ugu noqonayso waana taasi shakiga weyn waxa geliyay isla Ethiopia heshiiskiina si cad Ethiopia wali afkeeda kamay oran waanu ka laabanay iyo wali waanu ku jirnaa labada midna maysan oran oo lagama hayo laakiin waxay muujiyeen inuu shaki fara badani uu soo galay xaggooda dadka badankooda ayaa ku dhaleecaynaya sababo la xiriira dad iyaga loo magacaabay isla kow ay ka tahay isla wasiirka arrimaha dibadda uu ka yahay iyo xubno fara badan oo iyagu ka tirsan isla xukuumaddaasi maanta Somaliland ka dhalatay ee hoggaanka u yahay Cabdiraxmaan Ciro xubnahaasi ayaa ku abuuray ayaa dadyo fara badan ay leeyihiin shaki fara badan isla Ethiopia iyo khubaradeedaba sidaas laajigeedna Ethiopia waxay door biday in ay Soomaaliya ay kala heshiiso isla badda laba gooraalaba iyadu Ethiopia way ka go'an tahay in ay bad ay hesho ay ka ganacsato ayaa military ay deshkato walibana oo ay kareysato baddaasina meel kale walibana kuma taale waa Somaliland gudaheeda sababtoo way og yihiin inaan la isku haleyn karin mooryaanta xamar iyagu
maanta ka taliya iyo kuwii hore uga tali jirayba sababtoo ah waa kuwii shalay un lahaa argagixisada Ethiopia ayaa Ethiopia nooga daran oo cadow noo ah haddana kuwii ay sidaa lahaayeen waa kuwii hoostooda maanta ku jira ee maanta halkaasi kula shiraaya ee maanta guryahoodii jooga sidoo kale isla inaysan ahayn dad waxba aan la iskaga tirin ayay la tusiyay waa isla maantadan aan idila hadlaayo maalintii dhaweyd markuu xasan xabaalo fadhe oo booqday xaggaasi Addis Ababa wuxuu ay filla Soomaaliya ay sheegtay filla wardhiig laba loo aqaalaay ay sheegtay inay halkaasi Abiy Ahmed iyo isla xasan xabaalo fadhe ay ku soo kala saxeexdeen inuusan arrimaha iyo maamul goboleedyada arrimahoodaasi uusan taageerin isla Abiy Ahmed madhag buu jiray busi waa maantadan la hadlayo wuxuu ka soo degtay diyaaradda Addis Ababa ka soo kacday isla Kismaayo wasiiro ay xaabsatay iyo odayaal ay xaggaas doole ay geysay sidoo kalena ay xaggaas Addis Ababa isla wasiiradaasi geysay Jubbaland ayagu ka tirsanaa waxaana wasiiradaasi u sii tagayaan xagga iyo Kenya sidoo kalena isla Axmed Madoobe ayaa Kenya jooga sidoo kalena xasan xabaalo fadhe hore ayuu u sheegay in isla Kenya ay heshiis ay yihiin maanta oo aysan taageeri doonin maamul goboleedyada la raajiyo waxaa la tusiyay inaysan ahayn kuwa aan waxba la iskaga tirin kuwa aan qowl la gelin oo aan sharaf lahayn oo aan maaragtay dawladnimada agtooda aysan oolin oo noocadaas ayaa laga yeelayaa war maanta waxa ay leeyahay haddaba Somaliland Chinese ugu wanaagsanaa ay haysataa xukuumadda dhalatay ee ictiraaf miiska la idin soo saaray baa maanta ilmaadeeraya sidaad uga shaqayn lahaydeen maanta ayaa la idinka rabaa maanta waa maalintii ugu wanaagsaneed aynu ka shaqaysan lahayn isla dadkaasi ilaahay xaggeena u soo jeediyay sida aynu ku kasban lahayn maanta kuwaasi ayay noogu dhow inaynu ictiraafkeena aynu ku helno sanadka maanta 2025 bas Somaliland ugu dhow ictiraaf hadday heli weydo sanadka maanta 2025 inay helayso 10 sano soo socda anigu u malayn maayo sababo fara badan dhinac walba marka wax ka eegay geeska Afrika isbedel weyn baa ka dhacaya dagaalo waaweyna waa ku soo socdaan dhinacay ka bilaabanayaan iyo dhinacay ku dhamaanayaan waxaas oo dhanna lama qiyaasi karo laakiinse waqtiga ayay noo sheegi doonaa kasta ay xukuumadda dhalatay Somaliland maanta waxa la ictiraafka halka albaab ku yaalay sidaad gacanta ugu soo qaadi lahaydeen ka shaqeeya ummadda shacabka reer Somaliland waxa leeyahay dagaal sariimadeedkani aad ku jirtaan iyo isku muuqashadani ka soo baxa godadkani maanta heer waxa la marayaa qolyihii ajaanibta ahaa ee qadiyada Somaliland duulin jiray ee maanta difaaci jiray ay gabadhani ugu dambeysay oo qoraal wanaagsan ka qortay isla Somaliland misana ku tilmaamtay inay maanta ummadda Somaliland ay ugu dhow yihiin xilliga ixtiraafka ay heli lahaayeen misana ay mudan yihiin ayaa dagaal shaanshiye ay kula jiraan isla dawladda taagta daran ee xamar ka talisa iyo xulafadeeda taageerta ee ka dhimata inay Somaliland ay sharaf yeelato oo madaxa kor ay u qaado oo Twitterka dagaalno gubeedkaasi ay ka wada dadkeenuna inaga dadkeena dadkaasi la dagaalamaya hatta ma taageerno hatta warka ma hayno war waxa ay leeyahay saxaafada daatiidin iyo public figure intiina ah ee maanta ummadda wax gaarsiin karaysaba baraarujiyo ummadeena gaarsiinayna inay dagaal sariibadeedka ka soo baxaan oo ay qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland siday u difaacan lahaayeen iyo cidda difaacda siday u taageeri lahaayeen ay u difaaci lahaayeen ku dhiiri galiyaan idin leeyahay hada saxaafadtiin iyo hada public figure tiin amba TikToker la yaraahada amba Facebooker la yaraahada amba adeero gacaliyaal YouTuber la yaraahdo waxa tiinba dhamaantiin ba dad public figure tiin khaka amsina qadiyadiina maanta maalin ma laga aamuso marnaba qadiyadiina dhulka dhigana Soomaaliya uma doodan bawda laakiin qadiyadeena adeero gacaliyaal waa Somaliland nimadeena iyo qadiyadeena iyo dawladnimadeena iyo sharafteena aynu difaacano taasi baynu aynu wax ku nahay wassalaamu calaykum